guddi wasiir ah oo loo xil saaray nabad sugidda magaalada Muqdisho ayaa shirkooda ugu horeeyay kaga hadlay sidii u sugi lahaayeen nabad sugidda magaalada Muqdisho warkaas oo faahfaahsan waxa noo haya wariyahayga Cabdinaasir Talasame guddidii golaha wasiirada ee loo xil saaray inay ka soo tala bixiyaan qorshaha amniga ee caasimadda dawladda federaalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho isla markaana ay isku xidhaan bulshaweynta Soomaaliya iyo ciidamada booliiska ayaa kulankii ugu horeeyay ay xalay ku yeesheen degmada Wadajir ee gobolka Banaadir kulankaasi ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka gaashaandhigga wasiirka ganacsiga iyo warshadaha wasiirka kalluumaysiga wasiirka batroolka gudoomiyaha gobolka Banaadir wasiiru dawlaha waxbarashada wasiiru dawlaha duulista iyo hawada gudoomiye ku-xigeenno iyo saraakiil saldhigyada booliska gobolka Banaadir kulankan ayaa waxa looga hadlay amniga caasimadda dawladda federaalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho iyo hawlaha ay ciidamada amniga ka bilaabeen xaafadda magaalada Muqdisho sidoo kale kulankani waxa uu ahaa mid shacabka gobolka Banaadir loogu fahansiinayo in ay ka qayb noqdaan sugidda amniga magaalada Muqdisho gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuurax ayaa ka warbixiyay waxyaabaha looga hadlay kulankani iyo hawlaha ay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ka wadaan magaalada Muqdisho waxa uu yiri shirkii ugu horeeyay guddidu waxay noogu yimaadeen degmada Wadajir waxaana warbixin ka siinay xaaladda guud ee degmada Wadajir iyo baahiyaha degmada Wadajir ay qabto si loo sugo ama loo dardargeliyo amniga guddidu waxay tageen iskoosyada kala duwan ee ku yaala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir iskoosyadaas oo ay ka howlgaleen ciidamada loogu talagalay inay sugaan amniga si ay u ogaadaan xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada iyo baahiyaha ay qabaan ay tahay inay xukuumadda wax ka qabato ayuu yiri gudoomiye Tuurax sidoo kale booliska iyo shacabka degmada ayaa si fiican isugu xidhan si loo haqabtiro amniga Naasir Cabdulqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame Badda 24 TV magaalada Muqdisho